waa madal ay waayo aragnimo iyo aqoon iyo khibrad ay isku weydaarsadaan meeyarada dalku. Support cities, municipalities, local communities in giving a voice to the people and understanding the needs and to improving the capacity of those communities. And that is vital. That is vital in building the government and the state. outcome-ka aan ka furana forum-kan wuxuu yahay runtii mid aad iyo aad weyn waayo dameeradii dhammaada la isugu yeeray dadkii muhiimka dawladnimada Soomaaliya u ahaa base dhulka hoose u ah meesha la isugu keenay markii la isugu keenay waxa imaan karta in baahida dhabta oo ay dadku qabaan horta la helo la ogaado ka bacdina iyadoo midaysan in laga jawaabo marka waxaan isleeyahay wax weyn baa ka soo baxay shirkani ama madashan meeyaradu wuxuu daba socdaa kulan hore u qabsoomay sanadkii hore bishii labaad magaalada Kigali ee dalka Rwanda markaas oo isku yimaadeen ilaa 40 mas'uul dawladeed oo ka kala tirsan dawladaha maxay ahayd dawlad goboleedyada xubnaha ka dawladda federaalka meeyaro iyo agaasimayaal guud shirka hore ujeedadiisu wuxuu ahaa balada inay Soomaaliduna wax kala bartaan dalkaasi Rwanda oo Soomaalida isku duruuf ahaayeenna wax laga soo barto wixii lagu kordhin karana lagu kordhiyo waxa laga yaabaa dad badan inay kordhinta la yaabaan laakiin way jireen wax lagu kordhiyay shirkani markaa sanad iyo bar baa ka soo wareegay kiibu daba socdaa shirka gabagabadiisii layli iyo hawl baa la isla qaatay in la fuliyo kii waa lagu xisaabtamayaa balada waxa fulay laba waa madal ay waayo aragnimo iyo aqoon iyo khibrad ay isku weydaarsadaan meeyarada dalku saddex waa meel ay kula kulmaan dawladda federaalka oo wax badan kaga xidhan yahay haday noqoto siyaasad haday noqoto dhaqaale haday noqoto maxay ahayd aqoon iyo khibrad marka waxaan isleeyahay waa madal loo baahnaa oo qayb ka qaadanaysa kobcinta adeeg bixinta dawladda hoose forumkan la soo keenay meeyaro fara badan oo kala socdo magaalooyinka ay ka kooban tahay steediyada Soomaaliya iyo gobolka Banaadir waa muhiimad aad u weyn oo aan isleeyahay waxa ka soo bixi karo isku dayasho mowduuceena wuxuu ahaan doonaa horumarka laga sameeyay dhismaha dawladda hoose oo fircoon iyo caqabadaha soo wajahay xagee ayuu marayaa hanaanka dhismaha golayaasha deegaanka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo injineer Idris agaasimaha guud ee arrimaha dawladda federaalka ugu horeyn golayaasha deegaanka waa matalaadda shacabka degmo walba oo meesha ay degan tahay in laga helo matalaad dad matala shacabkaas ilaa hadda dadaalo badan ayaa la sameeyay sida la socotiin wadanka burburkii uu ka soo kabtay dadaalo badan ayaa lagu bixiyay in dib u dhiska hay'adaha dawladda la sameeyo waxa kamid ah hay'adaha dawladda xoogga ay saartay golayaasha deegaanka ma aha shaqo sahlan ma aha oo hore laga qaban karo caqabadaheeda ay leedahay ilaa hadda waxa lagu guuleystay in la dhiso 12 degmo in loo dhiso golo deegaan hadii laga reebo Puntland iyo Somaliland waxay ahayd safar dheer iyo dadaal dheer oo loo galay taal mid la mid ah wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxay hore u sameysay hanaanka wadajir oo loogu talagalay in la raaco si dhismaha golayaasha deegaanka ay u noqdaan kuwo ku fadhiyo micno weyn ku fadhiyo kuwo ku fadhiyo habraacyo la fahmi karo oo hagaagsan natiijo wanaagsan ay ka soo baxdo waa maxay fursadaha iyo caqabadaha ka jira Soomaaliya si loo sameeyo dawladda hoose oo tayo leh oo shaqeeya anagoo og inaad ku timid markii maayarka ahayd waxa la yiraahdaa selection election oo in la soo xulo odayaal soo xulaan kadibna ay maayarka doortaan golaha deegaanka haddana Puntland ay ku talaabsatay ay sameysay 3 degmo oo tijaabo ah oo qof iyo cod ah haddana ay rabto inay sameyso doorasho qof iyo cod ah marka adoo qabiirkaas iyo experience-gaas la waxaan insha Allah inaan nooga faa'iideeyo dawladaha hoose
waxay haystaan fursado aad u tiro badan oo ay tahay inay ka faa'iidaystaan. Fursadaha waxaa ugu muhiimsan nabadgelyada. waad ogtahay hadda waddanka Soomaaliya badankiisu waa dhul nabadgelyo ahaan laga shaqayn karo, waliba degmooyinkii badankoodii haddeer waa si fiican baa loo xoreeyey, maamulana waa laga dhisi karaa. Fursad weeye marka in dhulku uu nabad yahay, dadku is ogol yahay, markaa kadib waa laga dhisi karaa. waxaa kaloo jirta meelo badan Soomaaliya golayaal deegaan baa hore looga soo doortay. taasi marka waa maadaama golayaal deegaan la doortay ama xulasho maxaa la yiraahdaa doorasho ha noqoto ama doorasho cod ah oo toos ah ha noqoto, labadiba way ka dhaceen dhul badan oo Soomaaliya ka mid oo laga soo qaadan karo. tusaale ahaan looga soo qaadan karo wixii dokumenti ahaa iyo wixii isku day ahaa iyo wixii caqabad ahaana la fahamsan yahay. dowladaha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe midna lacag uma wareejiso degmooyinka. adduunka degmooyinka oo dhan waxay ku shaqeeyaan wax la yiraahdo fund transfer, lacag baa loo soo wareejiyaa. taageerada hay'adaha ay bixiyaan oo aan wada gaarin dowladaha hoose, waxaa laga yaabaa mashruucan JPLG oo kale kan ugu weyn ee Soomaaliya ka shaqeeya uguna waxtarka badan waxa weeye ma wada gaaro magaalooyinka, in gaar uu ka shaqeeya. marka iyaduna degmadii aan tababar la siin oo aan taageero la siin oo aan hore loo dhaqaajin ma dhaqaaqayso. The role of the central government is important in coordinating, but it's really the local government who is providing services to the people. The people, in essence, elect the local government. So the local government is accountable to the people, to its communities, to the local leaders, to the marginalized communities, to the IDPs as a whole. And only through an accountable, inclusive local government can they be effective. Can you be effective in state building? Can you be effective in decentralizing the functions around providing these services? Electricity, power, healthcare, education, livelihoods, all of these things need to be done in coordination and in a participatory manner with the people. UN Habitat helps support this process and helps support cities, municipalities, local communities in giving a voice to the people and understanding the needs and to improving the capacity of those communities. And that is vital. That is vital in building the government and the state. معنيه فائدوينك اللي ولا كوميد ميل رئيس معمول دادجدين تكوميد سيرفيس كي دولة إلا هير استيت لكوبلا هير استيت إلا يو فدرال أنتي لندير نقر سيرفيس كي دولة أوتوميسترن ولا كوبلا وده دولة هوس تصال أنا دي ميل رئيس ريفينيو عمل عنشورات كي فدرال كأنتي لندير نقر استيت كي لقالها نقر استيت كوبلا وده dawladda hoose aruurada state ilaa federal han gudbayaan sida oo waxbarashada iskuulada oo meelay maamul dadijinta dawladda wasaaradda federaalka oo arrimaha gudaha iyo state ku wadaan waxbarashada iyo iskoolaad iyo caafimaadka service iyo oo dawladda hoose tartiib aan la wadaagayaan oo ku faa'iideysadayaan shacabkina deeraayo adeegyada. shirkan waxaa laga hadlayaa shir hore oo ka dhacay Kigali, waxyaabihii degmooyinku ay ka soo barteen sida ay ugu fuliyeen deegaamadoodii. waxaa kaloo laga hadlay in maxaa la yiraahdaa adeegyada caadiga ah ay qabanayaan degmooyinka laga rabo inay u gudbiyaan dadweynaha, waxa caqabada ah hortaagan iyo sida lagu xallin karo. waxaa kaloo ka soo baxay in ay magaalo walba soo gudbisay qorshaheeda soo socda ee la gelinayo mashaariicda horumarinta ee sanadaha soo socda haddii Rabbi idmo.
intaas waxaa dheer dadka dhalanaya oo magaalooyinka dadka jooga ay dhalayaan oo ayaguna cadadkaas cadad leeg ku soo kordhinaya magaaladii marka maayarada waxaan rabnaa qorshahooda inaysan ku salayn keliya hadda xaaladda lagu sugan yahay inay magaalooyinku isku diyaariyaan deegaanadoodii inay isku diyaariyaan dadka tirada badan ee ku soo kordhaya noloshoodii deegaankoodii waxbarashadoodii baahiyadoodii kala duwaneed oo dhan inay meeshaas timaado ka dowlad federaal ahaan waxaan rabnaa halkaan aan ku dhawaaqna maanta inaan insha allahu sanadka abaalmarin sanadla ah ayaan ku dhawaaqaynaa oo magaaladii ku guulaysata iyo dowladdii hoose ku guulaysataa dowladda federaalka lacag 50,000 oo doolar ay u ballan qaadayso waxaana la yiraahdaa abaalmarinta sanadka ee dowladaha hoose iyo magaalooyinka dalka